wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa xogta maanta oo aan markasta idinkugu soo gudbino wararka ugu waaweyn ee dibadda iyo dalkaba ka jira. Qodobada ugu waaweyn ee aad maanta ku daawan doontaan waxaa ka mid ah Abiy Ahmed oo ku guuleystay biladda Nobel Peace Prize, Kenya oo wafdi u diraysa caleemasaarka madaxweynaha Jubbaland ee Axmed Madoobe, madaxweyne Farmaajo oo u hambalyeeyay ra'iisul wasaaraha Itoobiya, Trump oo Ilhaan Cumar ku weeraray gurigeeda laga soo doortay. Aad ku cusub tahay barta YouTube-ka aan ku leenahay subscribe saar. Aynu ku bilaabanay daawadayaal. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa waxa uu ku guuleystay biladda Nobel Peace Prize. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa maanta ku guuleystay biladda Nobel Peace Prize sida uu shaaca ka qaaday guddiga Nobel Peace Prize ee fadhigiisu yahay dalka Norway. Abiy Ahmed ayaa biladan lagu siiyay dadaaladii uu ka galay in uu xalliyo dagaalkii qaraara ee dhexmaray Itoobiya iyo Eritrea kaasi oo ay ku dagaalamayeen xuduudaha u dhaxeeya labadaasi wadan. Abiy Ahmed ayaa sida la sheegay waxaa lagu sharfay dadaaladii uu ka dhaxdhaliyay heshiiska ee u dhaxeeya labadaasi wadan. Dadaaladan ayaa waxay ahaayeen kuwo guuleystay oo nabad ah oo si wada shaqeyn caalami ah ay ka dhaxdhacday labada wadan si gaar ahna hindisahaasi waxaa awooddaasi lahay in ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo dadaal dheeraad ah ku bixiyay. Xafiiska ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa yiri aad ayaan ugu faraxsanahay dal ahaan inaan ku guuleysano biladda Nobel Peace Prize tan iyo markii uu noqday ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed bishii Abriil ee sanadii tagtay ee 2018 ayaa waxa uu dadaalo badan ku bixinayay in gabi ahaanba dalka Itoobiya uu noqdo dal dimuqraadi ah isagoo oo 6 bil gudahood sida la sheegay marka uu xukunka hayay heshiiska Eritrea iyo Itoobiya kala dhaxdhigay. Xabsiga ayuuna ka sii daayay mucaarad badan oo ka soo horjeeday qaabka dowladda Itoobiya ay wax u maamusho kuwaasi oo horay dowladihii ku horeeyay asaga ay xabsiga u dhigeen. Markana daawadayaal Kenya ayaa waxaa la sheegay inay wafdi u dirayso caleemasaarka madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe. Aadan Barre Ducaale oo ah hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya ayaa xaqiijiyay in dowladda Kenya ay wafdi sare u dirayso caleemasaarka madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe. Wafdi culus ayaan u diri doonaa magaalada Kismaayo oo ka qayb gali doona caleemasaarka Axmed Madoobe ayuu yiri Ducaale. Talaabadan ay qaadayso dowladda Kenya ayaa imaanaysa xilli ay horay u aqoonsatay doorashadii lagu doortay Axmed Madoobe halkaasi oo dowladda federaalka ee Soomaaliya doorashada Axmed Madoobe ay ku tilmaamtay mid sharci darro ah. Shalay waxaa magaalada Kismaayo gaaray madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed xilli la filayo in uu qabsoomo xafladda caleemasaarka Axmed Madoobe. waxaana la filayaa in ay halkaas isugu tagi doonaan mucaaradka Soomaaliya iyo sidoo kale Kenya oo ayaduna dowladda federaalka ee Soomaaliya aysan si fiican isugu fiicneen. waa tahay daawadayaal wali waxaa naga daawanaysaan barta YouTube-ka aan ku leenahay ee xogta maanta. Fadlan haddii aad ku cusub tahay subscribe saar. Markana madaxweyne Farmaajo ayaa waxa uu hambalyo u diray ra'iisul wasaaraha Itoobiya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa u hambalyeeyay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed abaalmarinta caalamiga ah ee uu ku guuleystay awgeed. Qoraalkan oo uu soo dhigay boggiisa Twitter-ka ayuu ku sheegay inuu u qalmo Abiy Ahmed guushaasi uu gaaray. Waxaan u hambalyeynayaa ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo ku guuleystay abaalmarinta Nobel Peace Prize. wuxuuna ahaa sanadkan mid u qalma inuu ku guuleysto kadib iskaashigii uu u sameeyay wadamada gobolka ayuu yiri madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa ku guuleystay biladan biladana ayaa waxaa bixiya guddi ka tirsan Norway waxayna sheegeen in Abiy Ahmed uu yahay qofka u qalma biladaasi iyaga oo ku sheegay inuu yahay mas'uulkii garwadeynka ka ahaa heshiiskii ay gaareen dowladda Eritrea iyo dowladda Itoobiya. daawadayaal wali waxaa naga daawanaysaan barta YouTube-ka aan ku leenahay ee xogta maanta. Fadlan haddii aad ku cusub tahay subscribe saar. Markana Mareykanka, Trump ayaa waxa uu Ilhaan Cumar ku weeraray halkii laga soo doortay ee Minnesota.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isagoo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota weerar culus oo xagga afka ah ayuu waxa uu ku qaaday Ilhan Cabdulaahi Cumar oo ah wakiilka aqalka Koongareeska ee gobolkaasi laga soo doortay una matala gobolkaasi. Trump oo u muuqday in uu markan Ilhan Cumar ku bartilmaameedsanayay gobolka hoyga u ah ee laga soo doortay ayaa halkaasi waxa uu ku dhaliilay ujeedooyinka siyaasadeed ee ka soo jeeda Soomaaliya gabadhan Soomaalida ah. Waxa uuna dadka reer Minnesota ku canaantay sababta ay uga raali yihiin in ay Koongareeska u matasho Ilhan Cumar. haweeneyda Koongareeska ka tirsan ee la yiraahdo Ilhan Cumar waa qof necab Mareykanka waxa ayna iska indhatirtay weerarkii Sebtembar 11 ee lagu qaaday wadankeena. Sidaasi awgeed waa qof noocaasi ah oo sidaasi awgeed sidee qof noocaasi ah idin matalaya haddii aad tihiin reer Minnesota. Aniga aad baan idinkaga caraysanahay dadkiinan hadda, ayuu yiri Trump. hadalkan Trump ayaa qayb ka noqonaya dagaalkii qaraaraa ee isaga iyo Ilhan Cumar u dhaxeeyay tan iyo markii xilka madaxweynenimada loo doortay Trump. Horey waxaa Ilhan Cumar iyo Trump warbaahinta iyo baraha bulshada isku marinayeen eedeymo iska soo horjeeda, waxaana midba midka kale ku eedeynayay inuu cadow ku yahay shacabka Mareykanka. daawadayaal, warkeenii maantay aad ka daawanaysaan xogta maanta intaasi ayaan kusoo gabagabeynaynaa. intaan ku kulmayno warkan war lamida, sidaas iyo nabadgelyo.